afartii sano ee dawladdan hadda waxay maraysaa in la marayo gabagabadii filimku waa ultimo sidaan la wada socono maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha hadda talada haya waqtigiisuna dhammaaday wuxuu dadaalkii ugu horreeyay u geliyay waxay ahayd sidoo uga taqallusi lahay madaxweynihii hore koonfur galbeed shariif xasan waxayna noqotay challenge-gii ugu adkaay ee dawladda federaalka qaasatan madaxweynaha markaas oo galo waxay noqotay in ay isku beddesho jahwareer dagaal aan caadi ahayn mudaharad aan dhammaanin xiisad aan caadi ahayn oo meesha ka abuurmatay laakiin waxaa muuqatay finally inay dawladda federaalka qaasatan maxamed cabdullaahi farmaajo ku raayay magaalada baydhabo ayaa xaalkeeda ahaa sida muuqaalka aad ka aragtaan oo ah in koox dadkii meesha joogay ay u taagnaayeen bahda saxaafadda ayaa qayb ka ahaa kuwa dhoorayay waxaa soo bixi karaya saacadaha markaasna soo aadanaa shakhsiyaadka madaxtooyada lagu arkayey waxa ay u badnaayeen saaxiibadii u dhowaa shariif xasan sheekh aadan oo wasiiro iyo xildhibaano isugu jiray hordhaca waxa ay kuu sheegayaan waxay ahayd in wax un ay dhici karayaan kuwa oo dadka farxad gelin doonin saacado kadib waxaa gudaha xafiiska laga sugayey shariif xasan sheekh aadan lagu arkay isagoo soo gelaya wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed daqiiqado kadib shariif xasan sheekh aadan oo dhinacyada laga socday ayaa goobta ka soo muuqday isagoo shacuur ka muuqatay howlka xafiiska la isugu tegey ma jirin laba qof oo wax isweydiinaysay ama dhoola caddayn ka muuqatay waxaan si rasmi ah isaga casilay xilkii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana kala waday labadii ciyaaryahan oo kala ahay xasan cali khayre iyo wasiir jabriil labadaas ka taqlusa shariif 2 sano kadib waxaa loo diray hawshii galmudug waa kuwaana raggii intii iswaalay ahlu sunna wal jameeca 4 bilood xasan cali khayre waxaa leeyahay xagga joog hawshaas wax ka qabo waxaa muuqatay inay ka qabteen baal aan caadi ahayn ahlu sunna wal jameeca waxay isadkeeyaan finally waxaa la yiri isu soo dhiiba hawshan hawl idin taala maahan waxay warqad soo tuuraan waxaa markii dambe go'aan lagu gaaray in la yiraahdo meesha iskaga taga waxay go'aan ku gaareen in xero inji la galo iyadoo markaas ay u ekeed inaysan ku badbaadeen meesha kaliya ay haysteenna waxay ahayd xero inji muddo kadib waxaa dhacday in dagaal lagu qaado saas inta loo soo qaaday banaanka la keenay waxaa leeyahay maxaa idin dana waa kuwaana ayagoo leh annagu saacadan waxay ka bilowdo dadkanaga ayaan u danaynaynaa siyaasadna waa ka baxnay hawshu waxay mare yeel ama hayeelin aday ku taalaa waxaa degan xaaladda magaalada dhuusamareeb oo dagaalla ay ka dhaceen waxayna ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya si buuxda ula wareegeen guud ahaanba xarunta ay ku sugnaayeen hoggaanka ahlu sunna waxay sidoo kale ciidamadu la wareegeen hubkii iyo ciidamadii ahlu sunna oo dowladda isu dhiibay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxay kaloo la wareegeen ammaanka hogaamiyayaashii ahlu sunna oo ay ka mid yihiin Sheekh Maxamed Shaakir Cali iyo Macalin Maxamuud Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah hoggaanka ahlu sunna ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusamareeb isagoo sheegay inay u tulansuleen shacabka inkastoo xaaladiisu ka dhigan tahay maanta oo aan tala hayay tabar ma hayo waxaan halkan ka sheegaynaa oo ka cadaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan inaan go'aansanay inaan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno xasan cali khayre oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya asagana waa kana asagoo leh waa nala soo xabadihii annagana la ku soo ridaayay ayaa aeroboorkii madaafiica ay ku rideen ayaa gubanaya hadda anigoo og sheekadaas waa dhamaatay ay noqotaba thumma wallaahi waxay noqotaba kuwa min ugu xoog badan bixi karnaa baashu hadda waxay mareen meesha ugu xumid waa la haystaa final way ama adinka la idin cunaa sida xiri injiga la idin soo saara ama adinka waa cunaya wax ka dhaxay ma jiraan ama shacabka ka mid noqonaysaan